Saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa aaga ayaan uga hadlaynaa. Aaga waa application lacag laga sameeyo waaye, waana fudud yahay. Qaab fudud ayaana lacag loogu sameeyaa aaga. Aaga wuxuu ka kooban yahay ama qeybaha uu ka kooban yahay waa home iyo productiska. Sidoo kale qaybta dhexna waa groupki waaye. Qaybtan team ayaa ku qoran, waa markaa koox abuurinaysid ama kooxdaada halka ay kasoo muuqanayaan ayaa waxay tahay team. My halkay ku qoran tahayna waa yacni profile-kaaga waaye. Profile-kaaga waxaa kaaga muuqdo waa kaya. Halkan waxaa kasoo muuqan doona kore numberkaaga ama koodkaaga iyo ID-gaaga kasoo muuqan doona. Qaybta xigana waxaa waaye investment-iga lacagaha investment gareysatay ayaa kasoo muuqan doona. Qaybta recharge balance-igana waxaa waaye lacagaha aad shaqaysatay maalinka ayaa kasoo muuqan doona. Qaybta ku xigta waa recharge oo ah markaa lacag dhiganaysid waaye ama markaa rabtid inaad lacag kusoo shubtid. Lacagaha ugu yar ee lagu soo shuban karo waa $10, $30, $50, $100 ilaa adiga intaa aad rabtid markaa. Lacagaha qaabka loo soo shuban karo waxaa waaye EFC Plus-ka ama Zad ama Golis, USD intaba waa kusoo shuban kartaa. Inta qaybta lacagta kusoo shuban lahayd waa recharge. Qaybtani ma withdraw waaye, lacag la bixinta waaye. Lacag la bixinta wuxuu kaa rabaa marka lacagta ugu yar ee la bixin karana waa $1. Password aad samaysan doontaa oo lacag la bixinta sida EVC oo kale password kuu leeyahay oo kale waaye. Lacag la bixintana waxay kaa maqnaan doontaa ama qaabkaas ayaa lacagta loo baxsadaa. Qaabaha productiska uu kala duwan yahay. Productigan $10 waaye, 200 saas waaye. Marka robotka ay iibsatid oo ku shaqeynaya tusaale ani hadda kale robotka ay iibsaday waa robotka $30 waaye. Waxaan rabaa markaa inaan qaato lacagta daily ah ama maanta ah. Halkan ay ku qoran tahay receive oo gaduudka ah ayaa daawan doonaa. Kadib waxay soo saari doonaa pick up request yacni lacagtaada qaado ayuu dhihi doonaa. Halkaas ayaan daawan doonaa. Marka halkaa markaa taabto lacagteeda maanta waa qaatay oo maanta ayay ii dhamaatay. Aan fiirino marka balance-geena aan fiirino. Balance-geena marka waxay noqotay waa $39.92. Yacni lacagtan waxay shaqeynaysay 10 maalmood ay shaqeynaysay. 10kii maalmood ayaa dhamaaday. Hadda marka waxay soo noqotay $30 ay invest gareeyay. $39.92 ayaa faa'iiday waaye. $9 ayaa faa'iiday. Haddana waxaa sameynaa marka 30kii ayaa maalgelinayaa. 30kii ayaa maalgelinayaa. 30 hadii aan maalgeliyo 30 ayaa maalgashanayaa marka. 30 ayaa maalgashanayaa. 30 ayaa maalgashanayaa. Product ayaa imaanayaa. Product marka imaado halka ay ku qoran tahay buy ayaan dhahayaa. Halkan ay ku qoran tahay buy ayaan dhahayaa oo iibsanayaa. Hadda $30 waa invest gareeyay. Marka haddaan fiirino my haddaan fiirino meeqa waaye $30 investment-iga ku celiyay. Halkan waxaa kusoo haray 9.92 kusoo haray. Isla maanta waxaan bilaabayaa shaqadii ayaan bilaabayaa robotka aan iibsaday maanta qiimihiisa oo ah 0.9 faa'iido ayaa qaadanaya. Marka waxay noqonaysaa 10.82 ayay noqonaysaa. 10 maalin kale ayaan sugayaa haddana waxaan faa'iidayaa $9. Haddii aad rabtid la soo xiriir comment kusoo qor waan kula wadaagayaa wixii warbixin ah. Soo dhawaada mahadsanidin.